السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم بكسر هذا برنامج كي لياب وكاميرا المجال لندن يا عربي إنجليزكا وما حيدتك لها يسته بوسيسك الصومالية يقربها برنامج كعوا حيدين قال ليك دونا أنا جوا سعيد أحمد. kusoo dhawaada barnaamijkii la yaab muddo aad u badan ayaa waxaa ka soo baxaysay wadanka Norway cabasho aad u badan ka bacdi markii qoysas fara badan oo Soomaali ah caruurtoodii si sharci darro ah ay dawladda wadankaas u qaadatay dad badan ayaa waxay sheegayaan arrimahan inay aad ugu far badan yihiin community-ga Soomaaliyeed ee wadankaas degan garaadse Abdullaahi Maxamed waa muwaadin Soomaali ah kuna nool wadanka Norway in dowladda deganaa oo ay dhibtan la soo haleeshay sheekadiisii waa tan ileega ani caruurteeda sharci deganaansha ayaanu ku haysanay wadanka iyo hooyadoodba marka waxa dhacday in anoo shaqaysanaya ay caruurtu waa iska taqaan hadii maaragtay wuxuu rabo ama maaragtay wax uu markaa doonaya aad warmaha daawriya ooyo oo xoogaas ilkaan biyo iskoolkii loo diro wuxuu leeyahay brikamal isagoo waa abasaas yeelay ama idili ama hooyo ay dishay marka sidaas awgeed waxa dhacday in iskoolkii iyo maxaan ku raada ay maaragtay ay soo weerareen oo ay yiraahdeen maxaan ku raada ilmaha waa la dilay waana qaadanayna marka waa la kulmay waxa irisay dilku muxuu yahay dilka sheegaysan marka waa mashruuc oo maaragtay caruurta Soomaalida lagu daldalanayo oo macnaha nabitaan iyo maxaan ku raada iyo cadaalad darro iyo boob halka ka jirta 5 sano ka hor 2010kii bishii koowaad ayaa la qaatay maadana waa 2016kii December dacwadii waxaan daba joogaba adigu ayadana waa u dacwoon jirtay annaga u dacwoon jiray maxkamadda dhowr ah aanu marnay waxa dhacday markii in la xukumay oo 2 sano lagu xukumay xabsiga oo xabsiga xataa maaragtay lagu sarac diliyay oo matalan xabsi xiran oo maxaan ku raadaay daaqad laga soo dhiibay raashinka maxaan ku raadaay dhibaatooyin aad u waaweyn aan kala kulmay ku xanuunsaday xitaa lagu xukumay muddadaas 2 sano waxa liiri oo lagu soo eeday oo waxbana aan ka jirin oo been kutaan ah oo dhac cadaan uu jiro in yiraahdeen ilmaha ayaa dishay ilmihina waxa weeyaan waa aabanahay ilma waalid wax uga wanaagsan ama uga waxana sidoo lagu soo kori aabay hooyada iyo waan jeclaayeen namana dir jirin marka anigu cunuga haduu iska yaraa aaba dilay oo la iska ujeeda meesha laga lahaa in caruurta Soomaaliyeed la boobo waa ku soo qaldana halkan nasiib darro laakiin ilmihii marka waxaa la weeday in waa dishay 4 caruurta ahayd 4 famil oo Norwegian ah loo kala qaybiyay si aysan ayaga isku arag isku baran isku dhaqan noqon maxaan ku raadaay u kala lumaan isku iloobaan marka umad Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta amar waxa macnaha dhacdadan ugu dhacday waxaan maaragtay aan ka codsanayaa in laga caawiyo meel walba ay joogaan ehelka maana Soomaalida oo dhan bay xataa ehelka waa arin maaragtay arin cadownimo oo ka baxsan bini'aadanimo wax oo maaragtay waxaan halkan u nimid wadankeena markii dagaalada isku ka dhaceen in halkan ka shaqeysano bini'aadanimo oo la noolaan laakiin waa cagsigeeda waa lidigeeda waa dhowr kun oo caruur Soomaali baa haystaan ninka koowaad ugu horeeya caruurtiisa laga dirayaan kuwa kalena waa laga diraya ayagana 2 kun oo caruurta markii laga diro waalidiintoodu de waxa weeyaan waa Soomaali bay ka wada maqan yihiin hadii la yiraahdo afartaad ubadkayda waa kuwan maxaad damacsanaan lahayd waxaan alxamdulillah rabbil caalamiin aan go'aansaday in aan wadankayga saa sheegtay aan waxay umad Soomaaliyeed ay qabaan xamar joogto iyo Soomaaliyaba aan la qabo ilaahay noogu mahadinaya waana la tagi lahaa waana wada tagi lahayn alxamdulillah rabbil caalamiin Soomaali weyntaas umad Soomaaliyeed wadankii ku nool baan wax la qaybsan lahayn
farxadna kula noolaan lahayn mana ilaahay baana ku mahadin lahaa alxamdulilah rabbil caalamiin dhibkaa maanta ilaahay iga saam waxa uu ahaa garaasi cabdullaahi maxamed oo waramayay warka bulshada ugana sheekeynayay waxyaabihii uu soo maray iyo qaabka ay hadda nolosha ku sugan tahay qisada labaad ee kale soo socota ayaa waxa iyaduna ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Oslo ee waddanka Norway oo iyaduna waddankaas ku dhalan gaadhay ama iyadoo carruur la timi reer naga ku haysata iyaduna nooga sheekeyn doonta balanta waxa ay kala kulantay iyo qaabkii loo soo ataagay ama loo soo weeraray iyo waxyaabaha ay aragtay ay soo martay magaceedu waa khibrad diiriye wasane aniga oo yar baan imi waddanka 17 jir ah ilaa haddana waan deganahay adugu 20 sano ka hor baan imi run ahaantii waxay hay'adda badbaadada carruurtani waxay soo weerartay taariikhdu markay ahayd 7 bishii 3 2012 aniga oo guriga ka maqan oo ku maqan maxaan idhaahdaa shirka loo yaqaano shir waalideedka iskuulada ama loo yaqaano maxaan idhaahdaa xiriiriyaha waalidka iyo iskuulka ayaa waxaan ka ahaa xubintaas oo fadhida galaaska inantayda dhexe markaas anigoo guriga agtiisa maray ayuu telefoon soo dhacay wax lagu yiri gurigaagan joognaa hebel baanuna marka waan garan waayay runtii waxay ka hadlayaan marka waxaan ku wiri ma idin garanayee guriga waxba uma jiray waxaan deganaa markaan 54 baanan marayay waan soo galay isuk hay'abay ku tiri way dhigtay gabadha telefoonka markaas ahaan gurigayga waa joogaan way fadhiyaanba laba dumar bay haayeen albaabkayga waan garaacay gabadh ordas iga hortimay sidii qof aan martay oo gurigiisii lagu soo dhaweynay oo kale oo leeyahay waa kan guriga ma garanaysa soo bax way soo carartay albaabka markay iga furtay waxay igu tiri hebel baan ahay waan eegay markaa bisinkan qabsaday adeeg culus baan sitay baraf bay ahayd dhulkan dhigtay marka waxay igu tiri waxaan kugu aqoonsado itus hay'ad tiri kaarkeeda wala soo baxday markaas waan ku dhahay dabayna wado gurigeena gali waan galnay markaan u galnay waxa dhacday tii kale waxay la fadhidaa saddexdeeda carruuraha oo sida eeyada maartay markay salaaxayaan oo kale ay salaaxaysay bas waxa noqday bada qof gurigiisa martay ku noqday bas waxa maxaa ku dana ma qeylin kartid ma habarabin kartid ma ooyi kartid shib markaas waan aamusay waxay ku tiri fadhiiso waan wada hadlaynaa hay'aban ku dhig waan wada hadalnay adwixii carruurta ku dhaxdan bay sheegtay carruurteedii wada murugaysan oo saacad la sii joogaado hal rabac waxay la joogeen saacad meelahaas bas markay ii sheegtay wixii carruurtu dhaxdan waxaan ku dhahdaba maxaa tihiin markaas ay xoog isugu kaysay sharaxda bas marka carruurtu way ka dhex qaadeen waxay ku dhahan qolka leena maray qolkii baan tagnay waan suuraysanay waxay sheegtay markaas inankaygu inuu meesha qaybta rooda kooshka waxay ku leeyihiin internetka qayb ay ku leeyihiin carruurta kala xidhiidhaan carruurta wixii dhibaataysan taana waxaa loo sameeyey carruurahan iyagoo yaryar lagu qasba guriga oo kale waxaa waddanka laga saaray inay kala xidhiidhaan dowladda marka hay'adan badbaadada carruurta anigu weliyo manaan arkin waxay yihiin waan maqli jiro madaxun baan ka maqli jiray bas marka waxay sheegtay inuu inankayga weyn uu diray meelka uu diray oo ku yiri masjid uu diray oo ku yiri waa carruur dhibaataysan oo kalidoodna joogtay na soo gaadha bas markaas markay sidii ahayd waan suuraysanay naagtii aduu haddana carruurta baan dhex fadhiistay carruurta baa la wareystay carruurta baa la weydiiyey kayga weyn marka waxay leeyihiin waxyaabo aanan filanaynin oo sidii malaha iyaka baa ku sii dhimiyaa ma wax isagu maskaxdiisa ka keenayba waan garan waay meel alla meel ay soo salashaan bas marka waxay ku tiri gudaha gal carruurtan ula hadlana gudi baan galay qolkan iska galay waxay ku tiri carruurtaada waxay sheeganayaan dhibaato aad u weyn dilitaan inaad xarig la dhacday inaad bahadishay inaad kab la dhacday inaad ku tiraahday nolosheeda wixii ugu xumaa sameeyaba tahay aadan nahay adu waxyaabo aan maskaxda gali karaynin oo hooyo lagu loo quuri karin bay ku dhahdaan bas waan iska aamusay adu way noqnoqdeen waxay ku dhahdana carruurta kale la hadal waan la hadlay ninkaygu weyn waxaa iska dhigay qof لسي أنا وان كرم واي سو لبدلي علمي يراد علمي ساك سكول كودر صدق بدلان مبانمه بس أذو حي حبي هاي الكودة من دل بس ساعدوا ذي اللي شوقن إلا 6 ساعات ويهلان مركز بحين عرته وانا نقعدنا نقول سبب عرته ذو قعدتان ما هي ستان ما يبين عرته واحدة وانا بقنينا وانا نقعدنا
وعرول لدلي وعرول لبهدلي وحن كوري شاربان لي هاي سكول بني مكاكيمي إن محل لي ده ضيع عروتي ذا بهدلنا كمان موقطة ضيعنا كمان موقضة عرون ضيعنا معها طلبات بنكور صدق حدا عرول أنا كليكو كرصدي أنا محيه هذا الشقيني وان لاقي أبون كلنا نرباحي لكن بهدلات أنت نلاقي أشياء كنا يعني لكن ما سمينين أول حبين هذا اللي كوجود علينا عروت السيد بيجا كهستان dadaalkay wuxuu noqday markaa waxay ku qaadeen wax la yiraahdo caawimada degdega caruurta la siiyo waxa la iga sameeyay inaanan arkin meesha joogan in la iga qariyo in maxaa la yiraahdo la soo wareysto markaan waxaan sameeyay wax wala yiraahdaan waxa ma rabnaaba oo daan uga qaaday way waxa jirta inaan siiyo maxaa la yiraahdo wax wala doonayaan bina soo qaataan warqadii oo dhan baan u saxeexay dawladdu waxay qaaxataa oo qaadataa wax go'aan xadidan ama farjeer ama dugu wixii ay sameeyaan bay maxkamaddu noo go'aamisa ku raacdaa marka taa anu aan raadinayo oo aan garan waay waxa weeyaan dadkan xaakimadan meesha xaakinka loo yaqaano iyo dadkan hay'adan u shaqeynaya caruurta ma isku wada way wada shaqeeyaan baan siraan waayo wax la igu yiri imka kale hadan tusaale ku soo qaato caruurta waxaad arki kartaa 4 jeer sanadkii marka ninkan xaakinkii markuu dhageysto hooyadan ahaa waanu macallimiin bay markaati furtay شارك باي مرخاتي فراي دكتوركي باي مرخاتي فراي إن هو يسكو في الليل أستابيلها حتى على ترجم شريه كان كفيعنا شري بس مركان جيد ده وحنا نركون إن حقدرت هاي ويحي أون أيك ويسوق عن سدان بهوس كسحيحان وحشرتي عروض بدون نروتشو لنتاي ولا دلي وتسيق نلا بسلام لماذا كبحث لما بلاد لماذا كبحث اللو دلي مركان سادرتيت يجوا حسلين تذاله marka dadkii aan dambiile ahayn iyo dadkii dambiilaha ba isku sibay oo maxaa la xukumayaan marka taaba aniga kaliftay inay xukumaan waxay ugu xukumeen 2 sano xariga iyo 210 kun oo lacag marka taasna 9 bilood bay iga gooyeen 9 bilood waxay iga gooyeen kiiskaygu wuxuu yaalay booliska Oslo ama xaafadan degan ee Maglarud baa la yiraahdaa wuxuu yaalay 10 bilood meelahaas وانا waxba ka qabanin isaas waxa sababtay dadkii dhaqsamay laha xanuunsaday marka aad qof way ku soo baraarugeen marka ku soo baraarugeena okay marka aanu khaladka malihi dadkooda xanuunsaday marka sadarteed bay 10 bilood 9 bilood iga gooyeen laakiin waxa xaq darro Soomaalida oo dhan la soo gudboonaatay mana ugu horeeyo mana ugu dambeyn doono waxaan idhaahdaa okay tanaadi way kugu dhacday laakiin mid ka sii daran baa jira oo afgaranaynin midaniga iga sii daran waan cadkayga waan soo goosan karayaa oo afbaska gaceliya maantada qudheeda anagoo dhakhtarkayga jooganayga la soo hadleen waxay isku dayayaan tusida caruurtii tusayaan inay iga yareeyaan maadaama aan jeel galayo tiibana ka doodayay waxaan ku wiri dawladdu waxay siisay xaq adiguna waxa leedahay caruurteeda mas'uulkooda haysataa marka xaqeygana dhowr ka caruurteedana dhowr maybe igu tiri xilliga aniga ay anfacaysa ayaan maxay heeday sameynay ma jiraysan kuli mana dhacayso hayay igu tiri la hadal looyarkaaga waayahay baan ku dhigay telefoonka waas ka dhigay anu caruurt xeerada kuna soo arkay runba fiican labada waaweynba walay diiday walay daba marteeyay walay gala hadlay may baan ku dhigay ima jirtay lama aan soo arkay meesha ku noolay jiifsanayaan bas labada waaweyn baa leeyahay marka meesha ay ku taalo ilaahay baan ku dhartay adigaaga weyn hadaas tahdid dub u noqo oo soo eeg ma garanaysid dub wadada wax noqonaysa raadkaaga quraanyada martiso godkeedu kuma meeraysato saasoo kale ma noqonaysa waan weydiiyay naagta waxaan ku yiri maxaa caruurta magaalada meesha xerada looga saaray waxay ugu tidhi maxaa la yiraahdaa ma garanayo laakiin anu waan garanay ogaan baan weydiiyay waxa looga fogeeyay xerooyinka yani caruurta baxsaneen يعني عيالك يرر ماشي كبحسن نولش يكون نولين إلهم بقيا سكرا قف عدنا قف مذونكم أركيسد قف عد مويانه مركز محل روحا كلوتا لها مان أورا لها دتك وين عرها كم قيهين وبتك أذيع عليها كهرين وإلمي هذا استعلاسين لكن هذا كهدد ده برتوسي كلي علوم بكل هدونا ويدقن كي نوساجي كاني نوساجي كودي نوساجي مركز عدوها هابل وwaxaan waa qadar lama good gali lahayn ilaahay baa qoraynan wadan gaale maado ilaahay baa qoraynan Norway maado ilaahay baa qoraynan saddexdii aan ku dhalay aan kaliya waliba xoogay ku koriyay in maanta de xabsi galiyaan ilaahum baan tala saartay bas dhalinyaradeenni hadda aragtid caruurteena hadda aragtid haday wadan gaale joogan iyo haday wadan muslim joogan inteeni kale waatan soo dhamaatay caruurteena waa kun dooyaha ku dhamaaday dooyaha ku dhamaadaan maxaa xakan ku sugayay Yurub ku sugaysmay weydeenin waxa ku sugaya waxa dhabarkooda ku jira iyaga lama rabo wax dooyaha loogu soo dhameynaya waa ina ubad xagan lagu beero
ubadkaa lagu beerayo kuwa ay dhali doonaan baan rabaa in laga haddaani kuwayga dan lagama lahaa kuwa ay sii dhali doonaan baa dan laga leeyahay marka dan weyn baa meesha ku jirta dalkeenina rag baa ku ciyaaray ilaa maanta 11 jir ah ilaa maanta waxaan maqlayaa Soomaaliya dagaal baa ka socda ama xabad baa ka dhacaysa maantana day iska dhacna 11 jir imka inankayga waa 16 noqonaya maash marka waxaan oran lahaa nimayahow caruurteennina way dhamaatay dadkeennina way dhamaadeen waa u bixin weeyaan caruurteena waa mustaqbalkeena marka mustaqbalkeena haduu dhamaado maxay ahayd Soomaaliya way baabahaysaa wana say ku socotaa hadda tiina caruurta laga qaaday maxay ahayd fina oo horanina watay caruurta laga qaaday caawiya way haddaan qodobku kor haddaydan idinku isu qaadin idaan is caawinin maxaa la yiraahdaa waxa badan ee godgodkiina waxa badan ee dhaliilihiina waxa badan ee ceebihiin anu maanta waxaan isu taagay oo mar walba u qeylay wada aragtay TV baan istaagay meel kasta waxaan u taaganahay aniga way ku dhacday laakiin tayga dambeysay ku dhaceen waanan u sheegaa mar walba aniga gacanteeda internetkan iibsada layga soo galay markaan ku dhaada caruurta la socda iska ilaaliya la saaxiiba khaasatan caruurta marka la ka qaado haniyad jabina waayo ubadkan adaada la naagtan cadimay dhalin kuwan aad u tagaysiin ilmahaga ka qaaday hayana waxba ku meegeysanin iyaga la saaxiib iyaga kuwan caruurtaada way caruurtaada baa hayaan iyaga dawladba u dhibatay waxba meegeysanin marka la saaxiib Scandinavian-kana haday sameyn karayaan urur kalidood u shaqeeya way fiicnaan lahayd halkana hadii laga sameyn karayo way fiicnaan lahayd waxaan oran lahaa Soomaalida Norway joogta walaalay hurdada ka kaca way ubadkeen way dhamaadeen imika waxay marayaan wada ragtay statika wada khriday marka hurdada ka kaca maxaa halay soo duceeyeen insha Allah taasi waxay ahayd khadrad deeriye warsame oo warramaysay warka jaariyada kana warramaysay qaabkii ay wuxuu dhaceen iyo hadda ku sugan tahay runtii waxyaabo laga naxo hooyo Soomaaliyeed oo inta caruurta laga qaaday haddana xabsi sugaysa waxa laga soo galay inta ka soo xidhay arfaas waxaan u bixisay runtii oo ilaahay caruurtina waa la saaxiiba ogaada meesha qabanayaan ka war haya halkaas laga soo geli karaa kale waddanka waxaa ka dhacay mudaharaadyo aad u fara badan oo ku saabsan arrimahan caruuraha la qaadanayo kaas oo runtii dadyo fadlan isku soo baxeen inkastoo ay dhahdeen dadka badankooda waxa meesha ka maqan dawlad dadkan xaquuqdooda u dooda waxaa ifraax daar barnoor way degan hooyooyinka maanta waxaan kamid ahay soo banaan baxay dadka inta hadal dhiilaa gabdhaha waalay ayaa dhahay aniga dawladda waxaan ugu baaqi lahaa inay waddanka Norway nooga furaan safaarad wadamada ajaanibka sida maaragtay Iiraan Iraaq Kuwait oo dadka waddankan ku nool markii ilma laga qaato safaaradooda u dacwooda waxaan leeyahay arday Ismaan Xaasho waxaan deganahay waddanka Norway anigu waxaan leeyahay dhibaatadan haysata annaga u sababa Soomaali haddaan nahay sababtoo ah kala daadsanaanta iyo firirka iyo maxaan ku iraahdaa isweydiinta hadda qof markii wax laga qaato kale ama dhibaato ku dhacdo kale yuu yahay la isweydiiyo marka kalmada yuu yahay hortay meesha laga saaro si wanaagsanna wax loo wada qabsado ahaantii aad iyo aad baan ugu qanacsanahay sida fiican ay noola hadleen maxay ahayd intooda badanna may garanay Norwejiga marka saa darteed waxa haysay shucuur inay isticmaalaan Tansbrook waxa loo yaqaan ama hadalka afka lagu hadlo ay tusaan iyagoo luqadda aan garanaynin sababta darteed waxaan u arkaa inay hooyooyin badan ay maanta ay xanuunsadeen ama ay tusayaan inay ka xunyiin cadaalad darrada Norway taalmaanta caruuriyahana loo guranayo hal la gurto caruurteena xageeba la geeyay midba meel baa laga tuuray marka waxaan maanta halkan u taaganay inaan soo ururino waxaan ugu horeyn doona waxaan ahay gabadha Soomaaliyeed ee maanta aniga oo wax allaala wax lagu haysta aan jirin caruurteeda la wada la kaxaystay maxkamadda saddexaadna waa la iga badiyay laakiin ilaahay wixii ugu talagalay wali meel bay ii taala laakiin maanta halkan waxaan u taaganahay in aan tuso dawladda Norway sharci darrada caruurteeda ku qaadanayso way jiraan ma oranayo hooyooyinka Soomaaliyeed ma wada isticmaalin waxyaabaha lagu haysto laakiin waxaan leeyahay ma wada sidano xarig ama ul ama kab ama maxaa la yiraahdaa waxa ay sheegaan ay xuuraha ku sheegaan ruuxantiina hooyadii Soomaaliyeed kulligood hadii mid laga helo mid kale laga helo 1700 caruur 1700 oo waalid ma noqon karaan maxay hayday waxyaabaha caruurta laga qaad inta aan la sheegaynin inta hooyada dhakhtarka taala badan aan la ogeyn waxay walaalo laba arrimood labadaba mid waxa weeyaan waalidkii oo aan afkii fahmaynin horta gurunka u horeeya waa ta labaad waxay tahay Soomaali iyada kala taagan hadii ay Soomaali hal tahay wax walba waa qabsan kartaa cidina ma duudsiin karto
laakiin Soomaali marka iyadu kala jajaban tahay faa'iideysi halkaas waraabiya arga uga soo dhacay marka waxa weeye Soomaalidu inay isku duubnaato qori kaliya hadaa istaajib ugu jabaa haddii si aad xaabo badan istaajib ma jiro marka aan hal baa la inoo helay weynaan isku duubnaanaa taas u meel wax ku dhacsan karnaa ubadkeena iyo nafteena sidee Soomaalidu ku midoobi kartaa ay kulata Soomaalidu waxay ku midoobi kartaa iyadoo ka tagta maanta halkan maaha Soomaaliya waa meel cadow ku weerarayo taa waxay ka tagi kartaa Soomaaliyadu qabyaalad ka tagto iyadoo subxaanahu wa ta'aala mid noqota iyadoo dhaafta waxa wadankii ka jira ay galamayso iyadoo qofka kale garab siisto walaal ka noqdo taa ayay Soomaalidu ku midoobi kartaa oo la galameeyo wixii la soo maray haddii marka aysan iloobin taas waxaa dhacaya sida imka la inoo cunayo baa la inoo cunaya hooyo walba iyo aabbo walba isagoo ay gurigiisa ku noqonaya berrina reer kale ooyaya laakiin haddaynu tan ka tashano waxyaalo badan oo faa'iido baynu heli lahayn oo ubadkeena aan ku dhacsano waa tahay waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkii la yaab oo aan ugu talagalnay inaan kusoo dayno dhacdooyinka la yaab kale ee ka dhacaya dunida daafaheeda arrimaha Norway ka dhacaya ayaa waxay noqdeen waxyaabo runtii aanu ka yaabnay taasoo sababtay inaan kusoo darno maanta barnaamijkan la yaab Daawud Bure Cabdi isna waa aabbo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Oslo ee waddanka Norway qoys ballaaran ah oo ka kooban 6 carruur iyo hooyadood iyo aabahood kaas oo isaguna ka sheekayn doona bal hadda wixii uu kala kulmay dadka carruuraha qaata ama baaraba magacooda maslahay uu kala kulmay iyo qaabkii loo soo maray iyo xaggii wax la marayaan runtii arfaas oo anaga bixiyay oo aad ka dhuntaan xaggan أنا برنامج كان كفاية ديستو دبعتي وقعدي بشي جنوري أنيقو لحرو يجوك مقالنا أوصل نروي وغلبنا فانك يصورين ويحبس إلي 6 أسبوع حيرين كبعدي واحد دنبنا يقوين دنبي كبعدي عروتي دمعيني قاتان لكن اللي هو كبد بادي مركا عروتي متكمد أو شن يطول سنة جرو iga qaateen waxay iga qaateen shalay oo taariikhda ahayd 16 bisha 7 2015 ay iga qaateen wiil 15 sano jiro bilaa shuruud la'aan iska kaxisteen oo ilaa hadda ay la maqan yihiin ma aqaan wax damacsan yihiin marka aan wacan waxay dhaheen anaga ku soo wicin ilaa hadda ima soo wicin marka dhibaatada ugu weyn oo Soomaalida ku haysta Norway waxa xagga carruurta la iska qaataa wax dambi la'aan ayagoon lahayn dadkii dawlad xooggan oo isku xirneen dadkii oo kala daadsan marka Norway dhibaataas ka jirta marka waxaan jeclaan lahaa ummadda muslimiinta meel kasta jooga inay soo duceeyaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haysta Norway carruurtooda la isku burto maalin kasto bilaa shuruud la'aan oo iska maagayo ama loogu tagayo iskuulka ama baanhagaha ama meel kasto cunug aan dhalay ayaa iskoolka intuu tagaa wuxuu yidhi aabbihi idili wax mana dilin waa beentiis cunug iska caroodo waa laba cunug waxaan u gaday moobeel asagana moobelka wuxuu roo markii sidoo ku caroodo arintii markuu sheegay booliis ayaa guriga ugu yimid 3 asbuuc ay xireen wax dambi ugu waayeen soo deeyeen waxay dhimay carruurta inay qaataan carruurta kale waxay dhaheen aabahan weligaa inama dilin waa fiican yahay carruurta kale la handaday oo wax walba lagu sameeyay heer waxa la gaartaa in la dalaalo oo la yiraahdo muxuu ahay walaalkiin difooso u noqdo meel fiican nolol meeshaan nolol ka fiican aan la siino oo nigeena ama guri inta ka fiican aan la geena gurigiina waa laga madnoocay waxay dhaheen ma tagi kartid guriga laga degnay ha carruurta waa laga soo yiri waxaan deganahay xaafad kale deganaa ayagana xaafad kale degan yihiin 3 maxkamadood mar maxkamadii saddexda waxa lagu dhaca carruurta ku soo booqan karta laakiin kii ku dacway ma soo booqan karo guriga ma tagi kartid marka waxa isaan wax la yiraahdo Norwejiga basuuq furbid marka Soomaalida Norway waxaan kula talin lahaa inay ay foojignaadaan maadaama dad miskiin oo iska jilacsan ay yihiin dawlad doodayso xooggan ay lahayn oo safaarada xooggan ay lahayn oo dadkii dawladda dhexe markay dhexda ka baxday kala daateen ilaahu maqan insha Allah alxamdulillah laakiin Norway waxaa jiro dad badan oo carruurta laga qaatay oo isla hadlay qaar waashay qaar aan maskaxdooda joogin qaar waddanka iskaga noqday qaar Yurubta kale iska aaday waxaan nimanayna gabale marka dibkaas iska jiro marka waxaan Norway ku talinayaa Soomaalida joogta carruurtooda inay kala baxaan sababta ay tahay wadamo badan ay Soomaalida ku nool Norway waxa ku nool 40 kun oo Soomaali Suudaan 100 kun ku nool Denmark sidoo kale Finland ku nool Yurubta 40 gees ku nool carruur laga ma qaato sababaha Soomaalida Norway loogu qaato ilaa hadda waa fahmaan dad aan waxba galabsan iska degan oo isku xiran marka waa fahmo waa Norwejiga waxa dhibabo nin inaag isqabo ama dad isku xiran waxay jecel yihiin dadka daadsan kaasna waxa uu ahaa Daawud Bure Cabdi oo ka waramayay qaabkii wuxuu dhaceen iyo halka maanta ku sugan yahay sidaad ogtihiinba waddanka Norway waxaa degan 40 kun oo qof ayaa dhalo Soomaaliya
oo ay u badan yihiin qoysas carruuro badan wata. qisada labaad kale soo socota ayaa iyaduna waxay ku dhacday qoys Soomaaliya oo ka mid ah 40,000 ee meesha degan oo ka kooban 5 carruur ah hooyadood iyo aabahood oo saq dhaxeynta loo soo galay habeen badh aqalka carruurtii laga dareersaday. waxay noqotay yani waa wax aan aqliga geli karin family inta loo tago habeen saq dhex ah ubadka yar laga maaragtay laga daldasho wax bini'aadantinimada xitaa ku jirta maaha wax meeshana wax dhibaato iyo dhiig dhacay iyo dhibaato taal iyo meeshana ma jirto so marka annaga laftirkeena waxay nagu noqotay yani wax ama kaag iyo fajac iyo naxdin iyo cabsi iyo wax kasta isugu ka darsanayo marka alxamdulilah maanta gurigooda joogaan jihaad iyo dagaal fara badan oo la galay anigoo raacaya sharciga inta aan sharciga u leeyahay inta aan xaqa u leeyahay alxamdulilah waa kuwa maanta arkaysid maanta haddaan soo waday waxaad moodaa runtii in farabaas lagu hayo qoysaska Soomaaliyeed ee waddanka degan gaar ahaan magaalada Oslo ee waddanka Norway oo halkaad ka arkaysan aabbo Soomaaliyeed oo carruurta laga dareersaday sar dhexe ilaahay weyn waxta danu soo celiyay. shirkada labaad ee kale soo socota ayaa iyaduna waxa ay ku dhacday gabadh la yiraahdo Safiya Cabdi Warsame oo iyadana carruurta saas looga dareersaday ilaahay u fududeeyay. waatan shirkadeedii in kullay dadkan ilmaha qaadanaya dad muslima maaha waa dad gaala ah waxa weeyaan waxay rabaan way u sameynayaan for example aniga oo kale hadda ciyaalka markii la iga qaatay labada ugu yaryar waa 5 jir iyo 7 jir waxaa loo geeyay family Norwich ah saddexda kaleetana waxaa loo geeyay meel lagu xareeyo ciyaalka gabadheeda ugu weyn maalintii ugu horeysay ka soo fakatay oo may tagin markaas ay uga soo tagtay mayna ku noqonin laakiin labada gabdhood midna 12 jir ah midna 10 jir ah la iima sheegin 3 mar ayay soo fakadeen oo meel duur ah ama bad ah ay ka soo noqdeen cabsadeen iyaga ay sheegay maalintii ugu horeysay oo gabdhahayga la kulmay iyaga markaan weydiin waxay dheen waa runo way soo fakadeen laakiin waxaan ku leenahay un shil wallaahi qofkii 30 sano waddankan deganaa iyo qofkii sanad deganaa aniga waxay ila tahay inay isku si macnaha loola dhaqmaayo waddankan sababtoo ah waddankan xuquuqi ma taalo haday xuquuq taalo ciyaalkaaga xaq darro laguma qaateen waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed anigu waan ogahay kulay waa sidaydoo kale ciyaalkooda uga fakiraan waan la socdaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay yihiin dad aad u adag aabaha kuma daray laakiin hooyooyinka waa dad aad u adag meel walba iyaga joogo ciyaalkooda iyaga u raaca iskuul iyaga u raaca maxay meelaha banooniga ku ciyaaraan waxaan leeyahay isqabsada oo gacmaha isqabsada si aan isaga celinno qoladan ciyaalka naga qaadanayso. Soomaalida badankeedu waxaad mudane dhib inay ceeb u taqaano waxyaabaha noocan oo kale markay dhacaan ama ay dhahdaan carruurta baa laga qaatay waa ceeb ama waa hadallo ay runtii ka warwareegaan oo aanay cidna kala hadlin laakiin waxaad ogaataan waxaad qarsataa wuu ku qarsadaa. barnaamijka bilowgiisa waxaan ku soo qaadanay aabbo Soomaaliyeed oo magaciisu ahaa Garaase Cabdullaahi Maxamed oo 2 carruur ah waddanka kala yimi 3 ugu dhalatay Norway oo dashantiba laga qaaday liidhaadna waddanka kaga bax 2 bilood gudahood oo xaalku jaqku ahaa mar labaad oo la kulmay oo ay dhaaftay xilligii loo qabtay waddanka ka baxo iyo hadalladooda ku hadlay waa kuwan isagoo waddo Ilaahay dibtii ka kala furay. waxaa mahad iskale eebbe subxaanahu wa tacaala sii dadkan ila fadhiya oo afarta ah taas ilaaha ugu mahad celinaya kuwii wax la taro oo ummadda Soomaaliyeed wax tarana allah ka dhigo sida runta waa maalin farxad u weyn oo aan la kulmay dadkii ilaahay siiyey ayagana waa kuwan aad fadhiya sida aragtaanba waa maalin taariikhi ah oo maxaan ku raadaay laawana kadib markii la yiri ilmahaagana waa laga reebayaa waddankan isaga bax ayaa maaragtay nasiib wanaag waxaan u yeeshay sidii muddadii laga qabtay ilaa hadda 2 bilood baa laga joogaa bishii 12aad waxay ahayd dabiiqadeedii marka 2 bilood baa hadda lagu joogaa intii la yiri waddanka oo raadinaya oo wanted aan ka ahay dadkan dunyadan ilaahay siiyana la rabo in la kala fogeeyo oo laga lumiyo oo aan kala lumno laakiin wala joogta ma ilaahay qoran maanta waa la fadhiyaa waana la joogaa goorma kugu dambeysay aragtidooda
aragtooda waxay ugu dambeysay sanadka horeeto bishii 8aad bay ugu dambeysay afartooda waxa ugu weyn ninkan la yiraahdo Saciid Garaash Cabdullaahi waxa ku xiga ninkan la yiraahdo Cabdulqaadir Garaash Cabdullaahi Farxaan Garaash Cabdullaahi ayaa ku xiga Maryam Garaash Cabdullaahi ayaa iyadana ugu yar marka Maryam marka ismiil sifrahan marka alxamdulillah ummadda Soomaaliyeed oo ku maasantiin dadkii iga caawiyay in maxkamad dib u dalbado oo aan dadkan hadii la yiraahdo ilaahay isii ku soo ceshto Soomaalida waxa ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed oo muslimiinta inay u duceeyaan in ilaahay uu duriyadiisa oo dib u soo celiyo oo islaamnimadoodana ilaahay idinkiisa kuwa muslimna ilaahay ka dhigo maasan ku caruur Soomaaliyeed oo maqan ilaahay inuu islaamnimada ku soo celiyo maasan tabaraka thanks waxaan doonayaa haddaba iminka intaa kaarsa showga in aan ka yara leexdo Norway oo aan ku xagaayo Canada North America waxaa jira qoys Soomaaliyeed oo 2 carruur laga qaaday oo magacooda looran jiray aabahana Guuleed Faarax hooyadana Farxiye Geelle waxa ay deganayeen waddanka Canada 10 sano 2 carruur laga qaaday kii saddexaadna markuu dhakhtarka soo dhashay ayaa san laga qaaday 6 sano ayaan in carruurta arag oo ay dagaal ku jireen iyo sidee u soo ceshan lahayn carruurtooda oo haddana markay u riyaadatay lirikis afraad isna laga qaadaya oo ay noqotay inay inta tagto waddankii xagga ku soo dhasho dad xagga ka timaado waa sheeko runtii baa social media in door haysatay xagga baad ka arki doontaa waa tan sheekadoodii That's 6 years I don't see my kids. No visitation, nothing I see. That is not resistio. That is resistio. How come I get my rights as a mother, Canadian citizen? Don't show the children 6 years I don't see my children. And my children, they give medicine and they're dying. Where is the Canadian right? Where is the human being? You show up, you look beautiful, but where is the right? Where is the real human being rights? I'm so sorry, Canada. Farxiye Geelle 2 carruur ah ayaa laga qaatay markii hore ka bacdi markii ay hablaha dhashay mid kamid ah lugta wax ka dhaceen 6 cisho ka bacdi markii dhakhtarka ka timi ayaa waxa guriga ugu yimi dadka carruurta qaata kuwaas oo ka qaaday 2 carruur ah ay markaa haysatay iyadoo ilmihii saddexaadna uurkiisa leh muddo badan ayay Farxiye u dagaalamaysay sidii ay ku soo ceshan lahayd 2 carruur ah ee laga qaaday balse waxaa dhacday in markii ilmihii saddexaad ay isna umushay in dhakhtarka loogu yimi 7 askar ah iyo 2 security guard ah oo wada socda oo ay ilmihii saddexaad oo markaa dhashay isagana ka qaadeen waqtiga imka laga joogo waa 6 sano oo aanay arkin 3 ciyaalaha ee laga qaaday Farxiye Geelle waxa ay maalin kasta timaadaa meesha ofiska ay ku leeyihiin dadka carruuraha qaata iyada oo halkaas doonaysa in la hadasho ama dagaal weyn wada oo sidii ay carruurteeda u soo ceshan lahayd isku dayaysa mar kastaba sidaad aragtaanba waxa mar kasta dhaca in ofiska ama meesha ay soo galaan lagaga saaro security guard kaas oo meesha dibadda uga saara si aanay uga dhex qaylqaylin ama uga dhex ooyin meesha. All right, so can you tell us your names? Yeah. My name is Guuleed Farah and my wife's name is Farhiya Girl. Okay. We came here 10 years ago. So when we were only 2 years in Canada, they took 2 children from us. And then my wife was pregnant. They waited until she had a baby. They apprehended the baby at the hospital with 7 policemen, 2 security guards, hid us the ground, took our son. We haven't seen the children for 6 years. No visitation for 6 years. And then my wife became pregnant in 2010. She can't have the baby here. So she traveled back to Somalia. waxay kaloo sheegeen in muddada ay dagaalka wadeen ay Farxiye haddana uur afraad yeelatay oo isna lagu yiri haddii uu ilmahan kale aad caloosha ku sida waddankan ku dhasho isna waa laga qaadayaa taas oo sababtay in ay waddankii Soomaaliya dib ugu noqoto si ay barta ilmaha ugu soo dhasho oo ay dad xagga uga timaado maadaama la yiri haddii aad halka ku dhashay isna waa laga qaadayaa waxay kaloo Farxiye soo ogaatay in 3 carruur ah laga qaaday ay 3duba loo geeyay qoysas cadaan ah kuwaas oo ciyaalkii qoray inay yihiin carruurtani carruuraha xanuunsanaysa
farxiisa waxay tidhi carruurteedu waxa ahayd carruur caafimaad qabta wax xanuunana kumaan ogeyn sababtay in ay carruurteedu la qoro inay xanuunsanayaan waxa aaga keentay bay tidhi dadyowga carruuraha loo geeya badanaaba waxa ay isku dayaan in ay qoraan carruuraha inay yihiin carruuro xanuunsanaya si lacagta ay ku qaadanayaan ay u sii badato maadaama ay carruurtu tahay carruur xanuunsanaysa arrinkan waa arrin aan sahlanayn hooyada yaabahani waxay kaloo sheegeen in subax kasta ay soo hor istaagaan ofiska dadka carruuraha qaata ay ku leeyihiin magaalada Canada kaas oo ay maadaan subax walba marka la furo ilaa iyo inta la xidhayo ay hortaagan yihiin maalin walba bilihii la soo dhaafay taas oo sababtay in dhowr goor lala hadlay oo lagu yidhi haddii aan ka hor dhaqaaqin meesha waxaa dhici doonta in aydan carruurtiinii dib dambe indhaha u saarin authority head. She said you can't talk, you can't say anything. You have 3 children. Your oldest daughter is not coming to visit. Only the youngest 2 boys will come to visit. We asked why you standing in front of the legislation demonstrating. Because of that, your oldest daughter is not coming to visit anymore. You will not get your children back. You can't say anything. Leave the police. Even you can't speak. You can't speak. Even you can't speak your kids. They threat us. Even you can't speak your kids. If you speak, they say if you speak, you never see your kids. If you speak, we feel in threat. We don't feel safe. We need our kids back. Yeah. We love our kids, our heart, our kids. Yeah. And we feel threat and abuse for this system. They abuse us. They say you don't even speak your rights. The church doesn't make decision. The Benin University doesn't make decision. We child family service just make decision, and we don't want to somebody speak these children. We want to keep forever. They say don't go the legislation. Yeah. Don't demonstrate. If you keep demonstrating, you will not see your 2 boys again. Yeah. So they've taken your children away. They've taken your. waxa ay kaloo sheegeen qoyskani in uu maxkamaddu ay ugu xukuntay in carruurtoodii la siiyo laakiin waxaa hortaagan bay dhahdeen in carruurtoodii la noo soo celiyo kuwa loo yaqaano social serviceska oo ah kuwa carruuraha qaata kuwaas oo aad moodid inay wax gooniya meeshan ka wataan una diidan reerkan inay carruurtoodii loo soo celiyo sheekadani runtii waxa ay noqotay sheeko aan ka yaabay dad badan ka yaabeen oo dee xaquuq darrada iyo sharci darrada meesha ka socota ay tahay waxaan bilaadanimo ahayn dad badanna ay runtii ka soo jeedaan daughter, they say you don't see. Actually, you standing here 2 months. Why you standing here? And people, why you hear you? That's why we don't show you your children, and even you don't see again. These are innocent people that you have stolen their children. These are good parents. And I am telling you right now, and excuse me for my language, but shove your privacy policy up your ass. Because what I am going to do is every single day, until you stop taking these kids from these parents, I will be here, or I will be on the internet, and I am going to expose what you're doing here. haddaba haddii aynu Soomaali nahay waxaynu caadi isaga leenahay in aynu marmarka qaarkood ubadkeena kula kacno buuq iyo qaylo canaan badan iyo gacan ka hadal aan loo baahnayn oo xaggii waddankeena laga yaabo inay caadi ahayd laakiin waddamadan ayuu arkaan dadkani inay tahay waxyaabaha carruuraha lagu qaato waxaad ogaataa ubadkaagu waanu dareemaa inaad tahay hooyadiis ama aabihiis oo aanu heli karayn cid ku dhaanta waanu kaloo dareemaa inaad tahay saaxiibkiis oo kala hadli karo wax allaale wuxuu tabayo ama uu doonayo ku hadlo isagoo aan baqdin weyn ka qabin oo islaahin wala ugu qeynaa wada gudub doonta waxa ka hadashay maalinta uu waxyaabaha kala hadli waayo waa maalinta ay oo cid kale kala hadli doono taasoo micnaheedu tahay in marka laga maarnay lagu dacweyn karo tayada ku kulmi doona barnaamijkan waxaan kaga tagayaa sidaayo ما دي من أحسن أهل ونكسب